Gareth Southgate hogaamiyaha xulka qaranka Ingiriiska wuxuu iclaamiyay dagaal ka dhan ah xulka qaranka Isbaanishka ka hor bilaabashada ciyaartii xalay ka dhacday garoonka Wembley waliba boodboodka goolka koobaad waxa bilaabay xulka lagu naanayso saddexda libaax Benoni uu shaqadiisa u lahaana Luke Shaw wuxuu si qurux badan ugu dhex tuuray jiilka yar ee Manchester United Marcus Rashford oo halkaasina ka dhaliyay gool lala cajabay. Shaw looking for Rashford, and he's found him, and he's found the opening goal for England. Swift and incisive. Kane had a supporting role, but two of the players elevated tonight have played a major part. marka iyo wixii ka dambeeyayna yaaba sheegay xulka qaranka Ingiriiska daqiiqadii 13 ee ciyaartana waxa barbardhac gool iyo gool ah ka dhigay Sawan Langwais and Spain level tucked away by Saul, who is a good finisher from midfield, and that's wiped some smiles off English faces. gool ay si cagacagaynaysay 32 daqiiqo waxa laba gool iyo gool u bedelay natiijada ciyaarta Rodriguez oo ka faa'iideystay Benoni free kick aha uu soo tuuray Thiago Alcantara kuna dhameystiray goolkii waardiyaha uu ka ahaa Pickford. He's in for England here. Went for power. And so too on the follow-up. Rodrigo, did he get a touch? He thinks so. laba gool iyo gool iyadoo la jooga Wembleyna waxa guusha ay ku raacday xulka qaranka Isbaanishka halkaasina Luis Enrique wuxuu ku soo xareeyay guul ay ku raaxaysteen lana riyaaqeen jamaahiirta reer Spain.